إلى تهي حوجا يا ماركتي ما وحنا خلدنا بنسلاه أنا وحنا نقول لها إن عندك حفلة ودي سود ويو لكن أنا كأسوأ أنا اللي سود ويو حوجا واحد بدأ إن أنا سكون عينه marka كل aad baad u mahadsantihiin talooyin badan baa laga sheegay meesha wax qurux badan baa laga sheegay faan badan baa la igu dhoodhoobay oo laga yaabo inaanan istaahilin midka kaliya xusayeen istaahilaa waxa weeye inaan guri qurux badan oo xushma taalo Soomaalinimadu taalo asaaskii ahaa ayaan ku soo barbaaray ay lahaayeen adeerkay Cabdullaahi Ciise iyo eedaday Faadimo Mabruuk ilaahay ha u naxariisto labadooda taas wax la inkiri kar maaha aad waxaan u xasuustaa guriganaga in uu ahaa guri aad u Soomaaliyeysan markaan dib u fiiriyo dhaqankii adeerkay iyo eedaday waxaan xasuustaa maalmaha kamid aad baan u yaraa eedaday cambuulo la cunaysaa ninka guriga ka shaqeeya oo saxan ku wada wadaagayaan baa waxa soo gashay islaan reer iyaguna madaxdii Soomaaliya oo hore hadaan sheeganaa taqaaniin laakiin looma baahna markaasay tirnaa faado maxaa ku waalay oo ninkii shaqaalaha guriga ka ahaa cunto la cunaysaa markaasay tira dadka ba asaga ay ugu sokeeya markii guriga naga saasaa loo dhaqmi jiray marka mid xoogaa aad ii taabatay waa Kamaal soo sax ma magaca Kamaal yes Kamaal waxaan leeyahay Soomaaliya arinta hadda laga hadlay way ka gudbaysaa wayna ka gudubtay aniga aamina waxaan ku waaniyaa dadka dambi badan waa la galay khaasatan reerkaas waa laga galay iyo reeraha kale oo la midka ah midaasna Soomaali hadaan oo dhan waxa qurux badan inaan niraahno walaalayaal nacfiya waa la gafay annagu sama gafina awiyashin baa gafay taasaas baan ka iri waxaan xasuustaa mar halkan uu yimid ninka la yiraahdo Xadraawi in aan sidan oo kale aan cudurdaar ka bixinay apology-na ka bixinay dadka Soomaaliyeed nala dhashay walaalaheena naga sancada badan ama ha noqoto intaas sheegteen ama dadka beeraha iyo wabiyaasha jiinkooda ku nool ha ahaatee in dambi badan laga galay laakiin ogaada haddii la dumo faa'iidooyin badan baa jira maxaad ku tiri anigu markaan baarlamaanka ku jiray ragga ugu fiican oo ugu aqoonta badan Soomaalida baarlamaanka markaa ku jirtay waxaa ka mid ahaa Dalxa waxaa ka mid ahaa Mawlid Macaan Allah u naxariistay si waxay ii taabanaysaa marka waxaan ka fakiray markii 60kii laga soo bilo dawladihii jiray